halkan waxaa ka taagan arrin mucjiso ah oo ay dadka badankooda dhabanada haystaan. dadka meeshan soo gurmadaan kamid ahay dad badan oo dhintay wax ka qaaday dad dhaawacmana wax ka qaaday. halkan waxaa ka dhacay arrin mucjiso ah oo aadan horay u maqal ee hadhaafin muuqaalkan. waxaan ka codsanayaa in marka hore muuqaalkan aad like saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan una share garee saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kugu wehliya si ay u ogaadaan saaxiibadaada arrintan mucjisada ah ee halkan ka taagan. meeshan tartiib inaan martid waaye oo quraan ku akhrisid haddaba ku akhrina masiibada aan kaaga digay ayayna kugu dhacday laga yaabaa. deegaanka Salax Dhadhaab oo ku yaala duleedka Guriceel isla markaana u dhaxeeya magaalooyinka Guriceel iyo Matabaan oo ah deegaan fac weyn oo sanado badan soo jiray ayaan booqasho ku tagnay si aynu uga soo waranno mucjiso la yaab ku noqotay baabuureyda iyo dadka deegaanka. waxaa ku aasan deegaankan culimo waaweyn oo caan ka ah guud ahaan Soomaaliya lagana xusi karo Xasan Daahir awowgiis Sheekh Aways waxaana darawaliinta isticmaala wadadan laamiga ah ay la kulmaan habeen kasta mucjisooyin aan la qiyaasi karin sida in darawalka marka uu goobtan marayo uu arkayo qof reer aakhiraad ah oo dhar cad wata oo jidka taagan marka uu damco inuu gaariga ka leexshana uu sidaasi gaariga ku rogmanayo halkaasna ay khasaaradu ka dhalanayso. waxaa halkan aad u jeedaan ku rogmaday in ka badan 100 gawaari kuwaas oo dadkii ay sideen badankooda ay geeriyoodeen halka kuwii ku dhaawacmayna ay ku naafoobeen shilalkii halkan ka dhacay. way adag tahay in habeenkii halkan mucjisadu ka taagan tahay aad xawaaro sare ku kaxayso gaariga aad wadato sabab la xiriirta in qof reer aakhiraad ah uu gaariga ishor istaag ku samaynayo kadibna wadaha gaariga uu soo wajahayo argagax xoog leh oo keenaysa in gaariga uu rogmado iyadoo culimada joogta Galmudugna ay bilaabeen quraan akhris joogto ah si la isaga xijaabo reer aakhiraadkan soo baxaya xilliyada habeenkii ah. meeshan qabuur waaye dad culimo wallahi ku duwan si Sheekh Aways oo kale ana magaalada Gaarsilaha wada dheer soo maray safar dheer soo marayaan waxaan dareemayaa magaalada inay dhowdahay wax uun gaariga maartay laamiga inay gooyaan amal ma hortaagan dhar cad wata marka ma ka jarna waa qalibada gaariga dhacaysa meesha la yiraahdo qabuuraha in maartay badana baabuurta ku gadoomaan qabuurtii saxlaab baa ku gadoomay dadka yaqaana oo Guriceel ka safarka darawalka waxay ku wargeliyaan in tartiib meesha markay marayaan u marsiyo quraan ku akhriyaan meesha mucjiso ka taagan inta aniga aan xasuusto kontumeeyo wadan tahay shil oo dhacday dad ku gacmo go'go'ay dad ku dhintay gabdhaha magaalada jooga gabdhaha kamid ah gacmaha ku go'go'ay oo magaalada jooga oo qudaarey ah suuqley ah oo la yaqaan muctarifa marka waa meel iska mucjiso loo martay dad karaamada ku dugan laamigii bay rabeen inay marsiyaan marka hore saan maqalna waa ninka leexsheen ka bacdi way marsi waayeen weerar ku dhacay libaxay iyo waxbay arkaysan wararka wayno oo ku warinay odayaasha hore ka warinay marka wax yar bay leexshay shilka halkan ka dhaca ma ahan laba gaari isku dhacda waa gaari socda oo markaas la kulmo hor istaag waxayna arko sidii qab qamiis wato kale sii sheegayaan marka ka bacdina shirka dhaca ama waa dhintaan ama waa jiisooyaan. arrintan mucjisada ah ayaa waxa ay noqotay mid ay hadal hayaan dhammaan dadka ku nool deegaanada Galmudug khaasatan magaalada Guriceel waxaana soo food saaray walwal ay ka muujinayaan reer aakhiraadkan soo baxaya habeenkii kadib markii ay dhowr jeer ishor istaag reer aakhiraadkan ku sameeyeen baabuurta isticmaasho wadadan waxayna bulshadan sheegaysaa in wadadan laga go'i karo haddii uu reer aakhiraadkan markaasi sii jiro iyagoona dalbaday in quraan akhriska halka laga sii wado. dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in qabuuraha qaar ka mid ah culimadii deegaankan lagu aasay la dul marsiiyay dhismaha jidka laamiga dheer ee isku xira gobolada dalka oo dawladda Shiinuhu ay dhistay kadib markii ay shirkadii dhismuhu diiday in laamiga la qalloociyo oo qabuuraha laga leexsho balse ugu dambeyn qayb qabuurihii ka mid ah ayaa laamiga la dul marsiiyay. ilaa iyo dhamaadka muuqaalka haddii aad ina wehelisay daawada waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan una share garee saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kugu wehliya si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale. qaybta hoose ee commentigana waad inoogu reebi kartaa aragtida muuqaalkan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. magacaygu waa Cabduqaadir Cabdullaahi Siisi.